السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديستيال كسو دوادا وحبنتيني مرتيدا مانت xubinteena murtida maantuna waa xubinta rasmiga ah ee afka hooyo aanu ka soo xullo halkana waxaa ka soo jeediya aniga oo ah Cabdinaasir Axmed barkhadle. xubinta murtida maanta waxaan ku soo qaadanaa badanaa anagoo bahweynta isku duuban idaacadda meelo fara badan oo ay khusayso ama ay ku leedahay ama meelo fara badan oo ay taayirka mariso iyo ujeedooyin kala gedisan oo iyada lafteedu ay soo saarto ama ay banaanka keento. xubinta murtida maanta waa xubin haddii la hay'ad mahayo da'wal balafil ama la dhihi karo caws la fil ama coomaadi ama da'wal balafil intaba waa lagu magacaabi karaa. waa xubin haddii la hay'ad mahayo aan ahayn kuwa isbedbedela, waana xubin qaarkeed casriga iyo haddii la hay'ad mahayo qadiimiga intaba u dhacda. xubinta murtida maanta waa xubinta aanu u xulanno bal in dadku ay sheekooyinka kuwa garta is-eryadka kala xishoodka isu imaanshaha istixgelinta isxurmaynta isxushmaynta iyo isku xidhnaanta iyo isxalinta iyo isxafididda intaba meelo fara badan ay xidhiidh kala yeelan karto. xubinta murtida maanta waa xubin joogto ah oo aanu jecelnahay inay dadku si fiican ay u dhuuxaan, kale inta ku xidhanna waxaa laga yaabaa iyagu inay faa'iido ku qabaan. xubinteena murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe. waxaa la yidhi ninbaa talo ku cakirantay beri, macnaha waxaa ku furnaa colaado wejiyo badan. colaadaha wejiyaha badan ee ninkaa isaga ihi ku furnaa waxay ahayd colaado aan aad iyo aad loogu kalsoonaan karin. bahasha colaaduuna dee yaryaraysi ma lahan. haddii ilaahay idmahayo markay ninkii colaadihii noocaas ahaa ku furmeen ee wejiyada badnaa ee talada ku cakirantay ayaa waxaa u soo baxday si inuu helo haddii ilaahay kuu idmahayo uu wax ku fardaamiyo oo colaadahan wejiyada badan ee ninkaas isagiihi uu ku cakiran yahay ama ku cakiran uu haddii ilaahay idmahayo uu xal u helo uu xal u helo. ninkii isaga ahaa wuxuu isku dayey inuu dhaqdhaqaaq dheeri ah sameeyo si uu xal ugu helo colaadahan wejiyada badan iyo taladan ku cakirantay. wuu tegey haddii ilaahay idmahayo nimankii uu colka la ahaa ayuu u tegey. markuu nimankii colka uu la ahaa u tegey ayaa waxaa dhacday heshiis bay galeen. markay heshiiska galeen heshiiska ay galeeni dee isagu heerka uu ka imaaday isaga ayaa mas-uul ka ahaa. iyaguna qoladan uu heshiiska la galayna heerahan ay colka yihiin mas-uul ka ahaayeen. wuxuu sameeyey markaa isagoo u sheegayo qoladanu inayna aamin lahayn ama aan la aamini karin oo heshiiskoodu yahay mid dhinac ka raran ama berriba ay ka bixi heshiiskii laysku oga ayuu wuxuu ku yidhi, niman yahow heshiinay geelana dhankiina uma soo foofsanhayo. niman yahow waynu heshiinay geelana dhankiina anigu uma soo foofsanhayo. hadalkii ayaa wuxuu noqday hadal qaangaadha oo la dhihi karo dadka aan ballamaha ku fiicnayn ee haddii ilaahay idmahayo aan heshiisyada dulqaadka u lahayn ama aan ujeedooyinka adag lahayn ama aan qowlka ilaalin hadal geya in lagu dhaho ayuu hadalkii isaga ahaa noqday. wuxuu yidhi, niman yahow waynu heshiinay laakiin geela dhankiina usoo foofsan mahayo. waynu heshiinay laakiin geela dhankiina uma soo foofsan doono. sababta wuxuu u qarinhayaa dadkaasi inayna ahayn dad qowl leh. wuxuu kale u qarinhayaa dadkaasi inayna ahayn dad isqabta. wuxuu u qarinhayaa dadkaasu inayna ahayn dad talo leh. wuxuu u qarinhayaa dadkaasu inayna ahayn dad haddii ilaahay idmahayo wixii maanta laysu sheegay dad looga hari karo ama lagu aamini karo ama looga aamusi karo inayna ahayn ayuu u qarinhaya. waa hadalka keligii ah ee ah niman yahow heshiinay geelana dhankiina uma soo foofsan ayaa dulucda ku duugan. waxay tahay qowl la-aan, isqabasho la-aan, iimaan la-aan, akhlaaq la-aan, ballanka bax iyo ballan la-aan. intaas waxyaalahaas oo dhan inay meesha ku duugan yihiin ayuu hadalkaasu ina tusaya. mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maantii waxaa weeye, nacas baa nin garasho u leh. nacas baa nin garasho u leh. adiga dee nacas buu qofkan kuu yahay, laakiin dadka qaar ayaa laga yaabaa inuu garasho u leeyahay ayna u arkaan inuu yahay caaqilkoodii.